Waxaa maanta magaalada Garissa lagu soo gabagabeeyay tartanka Qur'aanka Kariimka ee sanadlaha ah oo ay qabato mu'asasada faca weyn ee Al-Huda. Munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan, mas'uuliyiin oo hormuud u ahaa wasiirka wasaaradda deegaanka, kaymaha iyo isbeddelka cimilada, Mudane Aadan Ducaale. Allahu nuuru as-samaawaati wal-ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. Dhammaan dadkii ka soo qayb galay madasha ayaa si weyn ugu mahadceliyay Wasiir Aadan Ducaale garab istaaga uu u muujiyay arrimaha diinta, iyagoo carabka ku dhuftay in wasiirka uu qayb ka qaatay qabanqaabinta barnaamijkan. maxaa mahad saddexaad leh martida maasha Allah tabaaraka meel fofo ka yimid oo madaxda ay ugu horeyso oo ugu horeeya wasiirkeena Aadan Barre Ducaale ee runtii aan Ilaahay uga rajaynayna subhanahu wa ta'ala maanta maalin uu ka baahi badan yahay oo ciidda uu hoos ka yiraahdo hadda korkeedu joogay inuu mirahan gurto bal Ilaahay uga baryayna subhanahu wa ta'ala maxaa yeelay hadda waa wax aan marqaati u baahneenba marqaati uma baahno ficlan فالحق يقال مركز مجره إلى حفلة دين مجرته وصفك هراء ما شاء الله تبارك نحن ملاينا إن بضلنا ولو دعي دونا والوسع حصوصا دونا هدو إلهي رالك النقضة إلهي محنا قبرينا إنه نيذا إلهي وبرحتره نيذا إلهي إنه وبرحتره دنبقي سيكي والدكين إلهي أولافه خاتم هذا إلهي أمناجي توحيدك إلهي عرف كيسو وقصه بل إلهي أقبرينا سبحانه وتعالى ugu dambeyn maxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasiirkeena Aadan Barre kulli maxaa u maleynay Garissa County markii la dhaho diin nin walba hadda mashmuuca nin walba uu ku orda xafladaha madrasada iyo taxfiidya waa mid aad bilowday nin walba hadda muxuu doonayaa muxuu aaminsan shan inuu soo gali karo marka anaga nafteena la yaabina dugsiga hatta marka la xiray hadda waan joognaa Soomaa marka waxaan rabnaa inaan footpathka walaalkeen aan qaadno asagana baray asagana insha Allah ta'ala walaalkeen guest of honor wasiirkeena ya badankiina carafku waxa isku dhufateen inuu yahay reer Garissa ninka diinta maaragtay u taagan reer Garissa County waxaan halkaas ku darayaa annagana waxaan u haysanay inuu yahay Kenya dhan ninka diinta u taagan maxaa yeelay markastoon u baahan haddaan reer Madheera haddaan Kenya kala tahay sidoo in idinku taagan yihiin noogu taagay anaga bartaas ka taagan yahay Allah barakeey ayaa leenahay camalkiisa adduunkan waxa way hadaa lagu sheegay waxba tarimays aqara Allah miisaankaad ku kabaan ku leenahay quraanka ninka weynaya rabbigu weynay quraanka ninka weynaya rabbigu weynay quraanka ninka yasana rabbigu yasay nin walba uu garan umurta ayada wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh marti sharafka maanta xafladan sida weyn loo soo qaban qaabiyay ee gunaanadka tartanka Quraanka Kariimka ah wasiirkeena Wasiir Aadan Barre Ducaale County Commissioner xildhibaanada walaalaha isla soconay culamaa diinkeena sharafta leh magaalada Garissa ee aas-aaska u ahaa mirahan maanta aan guranayno waalidiinta dhammaan intii ka qayb qaadatay tartankaas marti sharafka guud ahaan assalaamu calaykum wa rahmatullah aad baan ugu faraxsanahay inaan idin kala qayb qaato xafladan wixii hadal iyo waana ah guest of honor oo wasiirka ah baa inoo dambeeyo oo ina siin doono laakiin anigu mahadnaqii tirada badnaa ee iga horeeyay waan dhaxda ka galayaa waxaan ka bilaabayaa intii soo qaban qaabisay xafladan intii ka qayb qaadatay aad iyo aad bay u mahadsanyihiin intii ka soo shaqeynaysay dhammaan waan salaamayaa walaalaha ka soo qayb galeen haday yihiin culimadeena barakeysan iyo madaxdeena wasiirkeena uu horeeyo waxaan kaloo salaamay oo soo dhaweyni hooyooyinka maanta saaxad ugu horeyso waxaan ileenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku mahadinaynaa kadib ilaahay subxaanahu wa ta'aala mahadiisa
waxaa ku mahadsan culimadeena khayrka badan oo maaragtay arrinta kasoo shaqeysa iyo wasiirkeena ugu marti qaadeen ayagana inaan kasoo qayb qaadano jazaakumullahu khayran khayr badan oo naga maqnaa baan helnay runtii maalinta sidan oo kale ay ka dhacayso munaasabada waxaan dawareegi jirnay Facebook iyo TikTok iyo waxa la soo gelinay baan taagnaan jirnay maana heli jirnay faas oo qayb qaadano marka waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala hanay sharfasaan oo sharafteen jazaakumullahu khayran aad iyo aad ugu faraxsanahay jamciyatul qur'aan say shaqada qiimaha u qabteen kitaabka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay nagu dhiirigeliyeen أنا روا مركو إن أرضه أفكر دعاته قبلها جارس دمان إيو هويوينك أفكار كو هالله حاني لين هاي شكرا جزاكم الله خيرا نقيبت أنا قصيسين وأكم هالسنتين بقولك وبقول وحان روا أنت إن أنكو كرديو ilmaha quraanka barteen waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala qalbigooda ku sugo hana ka dhigo kuwii barteen oo ku dhaqdeen oo maaragtay camal iyo laga helo cilmiga ay barteen camal falin aan looga dhigo intaa kadib waxaan rabaa hal kalimo inaan ku daro oo hooyooyinka maadaama dadka anaga ayagoo yar cunug yara oo maaragtay shalay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku hibeeyay oo saa quraanka u bartay oo dhiirigelintaas maaragtay saas ugu dhiiriday inuu akhriyo cunug yara hadda maaragtay 10 aan gaarin anaga dhan naga ilmeeyay inaan anaga hafta anaga inaan quraanka barano oo saa maaragtay ilmahaas maaragtay ay u sii fiicnaadaan ilaan gurigi markii hooyadii ehl quraan ay noqotay ilmihii oo dhan ehl quraan ay noqonayaan wasiiri bishii shabcaan hadda aan soo dhaafnay adigana kulli magaalada waa la joognay waxaan attend gareeyay oo ka qayb qaatay 13 xafladood oo madrasa iyo dugsi lagu xiraayay oo lagu qalin jabinayay waxaa midda aan u soo sheegayaa waxa waaye Garissa town inay magaalo barakaysantahay oo maarta diinta islaamka aad laga baranayo loogana xusaayo marka reer Garis ninkii tagay oo xafladooyinka tagan baa dareemi karaa meelay joogto iyo waxbarashada diinteena meesha ka joogto magaalada Neyto dadaalkan waan wadaynaa wasiirka noo bilaabay waa wax fiican oo laga barto madaxtinimadiisa anigana haddaan MPga magaalada maalin badan baa jirta hatta magaciisa lagu gufanayay markii aan magaciga la rabin la sheego ay dhaahayeen maxshimuha aadan ducaale maama tiri markii dambe oo tiri waad maqlaysaa ilmaha sayto hatta magacaada inay ku gufteen oo maarta wasiirka maxay la waa wuxuu meeshan uu ka qabtay uu ku geystay magaalada Neyto Garis hadii la dhamo madrasa ugu dambeyntii ardaydii guuleystay ayaa la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan iyadoo ardaygii kaalinta koowaad galay la guddoonsiiyey gaari loogu talagalay away nimanka saaxiibayaasha ma dhihin sanad kasta ninkii gaari rabo waa inuu quraanka barto furiina waa kan furii iyo loobu kuti waa diyaar ninkii rabo inuu gaari helo insha Allah sanadka dambe haddii Ilaahayna gaarsiiyo waxaa ka xigta inaad quraanka 30 juz aad xifdiso tartanka ka qayb gasho number 1 aad qaadato labadii wiil oo numberka labaad galeen waalidkood lagu soo wareejiyo si degdeg ah telefoonkooda iyo magacooda sifa aan oo tashano arrinkii xajka insha Allah eegana gaariyaan ku wareejinaa يا مامدا يا ويلك يا بتجي كلا راعي